barnaamijkan ay qabato shirkadda Somtel mahadsan macmiil waxa aniga la soo odeysiyay inaan ku guuleystay xilli habeenimo ah aniga waxa jooga goob masjid ah waxana ay soo wacay gudoomiyaha degmada Qardho wuxuu yiri waxaad ku guuleysatay barnaamijka mahadsan macmiil telefoonkan ku guuleysatay shirkaddan iyada ku soo gaarsiin doonta hadii Allah wada ogolaado waxa leeyahay marka aad iyo aad u mahadsan yahay ninka la yiraahdo gudoomiyaha degmada Qardho iyo madaxda la shaqeynaysa shirkadda Somtel iyo madaxda kale hadda guddoonsiinaysa shirkadda Somtel degmada Carmo u joogta waxaan kale leenahay aniga shakhsiyan haddaan tayada ka hadlo muddo dheer baan isticmaalay shirkadda Somtel waxaan isticmaalay internet-keeda waxaan isticmaalay ku hadalkeeda ilaahay baan mahad iska leh mahad koowaad iyo labaad iska leh arrintan aan ku guuleystay waxaan arkaa qadar ilaahay waxaan kale u arkaa dadaal ay shirkaddu gelisay macaamiisheeda inay gadaal ugu celiso waan rajaynayaa kuwa kale oo badan inay sida ugu guuleysan doonaan biidnillaahi kariim waxaan leeyahay waa hawlka madaawada ogadii shacabku shirkadda waa inay la shaqeeyaan horena ay la shaqeyn jireen haddana waa shaqada la bajibaaraan biidnillaahi shirkaddu waa inay sida kala soo dhawaataa ilaahay dankiis wada shaqeynta ay macaamiisha iyo la leedahay shacabkeeda macmiil waxa ku leeyahay wax ka xiga qadarta ilaahay waa meesheeda laakiin shaqada aad qabanayso muhiimada ku ah waxay tahay inaad ku shubato 25 senti ama ku shubato 50 senti ama ku shubato $1 adigoo isticmaalay shirkadda Somtel meel kasta aad joogto goob kasta aad joogto umana xirra cid gaara cid ilaahay u qadaray helaysa goobta doonta ha joogto afogaataa sabeerato shirkadaasna sidaas ay barnaamijkeedu yahay barnaamij daahfuran wada shaqeyn wacan biidnillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين ضمان معاميشه شركه اسكارسينتا Somtel meel kasto ay joogan waxaan leenahay hambaliyo barnaamijka runtii mahadsan macmiil oo shirkadda Somtel ay ugu talagashay inay macaamiishooda ay dib ugu celiso isticmaalka ay isticmaaleen adeegyada kala gedisan ee shirkadda inay abaalmarino ay dib ugu celiso ayaan asbuuciisii labaad guuleystihii koowaad aan u joognaa maanta magaalada Carmo inaan ku soo dhaweyno xafiiska shirkadda isgaarsiinta Somtel farxad bayna u tahay inaad nagala soo qayb gashaan dhammaan odayaasha iyo runtii macmiilka ku guuleystay barnaamijka mahadsan macmiil waxa mahad labaad leh shirkadda Somtel oo barnaamijkan soo dejisay oo tiri كشبو كنت سنتي وعاد كوريسو بابور فرنسا أما مقدرك أقول غالسا إلى دولكنا مركا وتاسنا فرحب بيوت هاي هذا أن شركة Somtel runtii dadaalka iyo abaalmarinaha iyo firfircoonida ay wado waan soo dhaweynaynaa waan la shaqeynaynaa Somtel shawaas agala ku ku shubanayaan waa isticmaalaa dadku ugu horeeyay qaatay waana kamid ahaa waxaan ku boorinayaa shacabka inay isticmaalaan shirkadda Somtel inay isticmaalaan maxaa yeelay adiga cidna u danaynaysa naftaada u danay qof walba naftaada u danay ana hal door baa ku shubtaa sanad dambe waxay sabil dambe haysan marka waa runtii wax lagu farxo wey maantii barnaamijkii mahadsan macmiil halkan loo fadhiyo abaalmarintiisii uu ku guuleystay Abshir Maxamed Qoslaaye waxa weeye fursad qaaliye waxaan leenahay bulshada reer Carmo ama bulshada Soomaaliyeed markay soo joogaan geeyga Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan isticmaalka adeegyada shirkadda Somtel aad baan u mahadsantihiin waxaan leenahay barnaamijkaas sidaan u isticmaalo insha Allah si ka fiican loo isticmaalo macaamiil isticmaal adeegga idahab dhammaan baahiyaha ganacsiga ku iibso lacag dirid ku shuba ribaad internet dhammaan wax kasta oo aad isticmaal lacageed uga baahato